جزاك الله خير واحسن الله اليك. ilaahay subxaana watacaala aayadka qur-aanka kariimka inagu anfaco runtii kelimaad ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimi oo aad iyo aad qalbiga u taabanayay codka aadka u dareegana runtii uu qaarigaas inagu soo gaarsiiyey ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo. muddo 3 daqiiqa waxaan u yeedhi doonaa saciid cabdillaahi saciid oo ah gudoomiyaha runtii waaye fursadda sidoo kalena magaca islaamic online iyo labada shirkadood maalgelin muxaadaradan inuu noo suurtoodo inuu kelmadiisa ina yidhaahdo kadibna muxaadarada ayaa toos noogu bilaabi doonta 3 daqiiqo kadib insha allahu kusoo dhowow sheekh saciid. الحمد لله وكفى سلام على نبيه المصطفى كل وقت قليل وأيضا بعد صدقتك شيخنا من وصول قلي وحمصك عيوني ومهد عليه وكنت شيخك وحسك وغاد وهذا إلى كتب ويسوق بري سفر جلية إن كان قريب في محاضرة اليونيو شيديو يسوق بري صلاة الصبح كتب سفر كقرن إنه رمتي وبحاث يضد كانت دليرة استيما يسكن مدن شيديو iyo runtii akhyaarta iyo shirkadahan inaga inoo fudeydiyeen inuu runtii xafladan qabsano guuleed hotel oo isaguna mar walba ina martigeliya runtii dadka qiimaha badan ee halka fadhiya dhammaantii waad mahadsantihiin. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa kelmaddaa sheekhu inoo odhan doono inaynu weelayno oo ka faa'iidaysano oo kadibna insha allahu tacaala dhaqan gelino. waxaan toos ugu soo dhaweyn doonaa sheekheenna faadilka ah sheekh mustafa xaaj ismaaciil haaruun. ilaahay tabaaraka wa tacaala ubadka iyo ehelkaba ha u barakeeyo. سؤال شيخ جزاك الله خير. يقدر الشيخ Yeah. Right. كم هذا استعذر هذا الكاميرا ضمير سنة كيف يا شيخ أنا شيخ قابل إيه شيخ كيف قابل ملك ترى تبغى كل كان كاس كيف سمع كان في كاس هذا وش بيجي كوا كاس أنا قابل إيه شو هذا واحد يقول كورو جيدي بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما وبعد أنا ظهرين dadkii soo qabanqaabiyey iyo dadkan ka fiican intiinaba waa idin mahadnaqaya iyo gaar ahaan hotel guuleed oo caawa albaabadaba u xidheen labada albaaba waa xidhan yihiin yani hudhaalkii ma shaqaynaya intiinan unbuu ayuu soo dhaweeyey. sida cinwaanka hore u maqasheen su-aashaas ayaynu jawaab u daydayna. waa kuma hogaamiye? hoggaanku ama alqiyaada waxa af carabiga lagu yidhaahdo alqawdu naqiid sawq bay yidhahdeen. xoolaha qofna xagga dambuu ka kaxeeya qofna xagga horuu ka wada. qiyaadadu waa cidda xagga hore ka wada ee hagaha u ah. eraygu af soomaali ahaan af carabi ahaan af ingiriisi ahaan waxaad moodaa inuu macno qura tilmaamayo leadership iyo alqiyaada iyo af soomaaliga laftiisa oo ah hogaamiye ama horseed ama garhwadeen waxaad tidhaahdaba was wada macno ku dhadhow.
waa macnayaal dhammaantood isku dhadhow oo ah dad ama ummad ama koox ama guri wax kastaba ha ahaadee qofka garwadeenka u ah. terminology-kalina ma ka gedisna macnaha lugawiga ah. waa qof dad ama koox hogaaminaya ila alhadaf, yoolkii ama goolkii ama dantii iyo qasdigay lahaayeen ku wada. af carabi ahaan weel yaroo kooban bay ku tilmaamaan qiyaadada ama leadershipku inuu yahay, oo ah alqudra calى taxriiki الnaas naxو alhadaf. awoodda la awoodo in dadka loo dhaqaajiyo yoolka iyo goolka ay leeyihiin meesha ay u socdaan. cumuuman markaynu idhaahno qaa'id, dadka inta badan madaxiisa waxaa ku soo degdega hoggaanka guud ee ugu sarreeya, political leaderka. laakiin hoggaanku waa cid kasta oo dad hoggaamisa. gurigu hoggaamiyuu leeyahay, wanaaggiisa iyo mustaqbalkiisa iyo badhaadhihiisa khitada iyo u hor socda. dugsigu hoggaamiyuu leeyahay, iskuulku hoggaamiyuu leeyahay, jaamacaddu hoggaamiyay leedahay, shirkadda dhaqaale hoggaamiyay leedahay, waxay doontaba ha noqoto. idan hoggaamintu waa in dad la hago, oo ama hoggaamin dhaqaaleed ha noqoto, ama mid maamil ha noqoto, ama mid siyaasiya ha noqoto, waxay doonaysaba ha noqotee. haddaynu inta guud ama islaamku siduu u arko si kooban u tilmaamno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuyna faray 3 qof hadday safar u baxaan inay mid hoggaamiye ka dhigtaan ama maamule. waa 3 qof oo safraya. safarku waa wakti yar buu qaataa. waxay taasi tilmaamaysaa bini aadamku noloshiisa inaanu ka maarmin cid hagta. xataa wuxuu nebigu leeyahy 3 dhul bannaan jooga uma bannaana ilaa iyo inay mid madax ka dhigtaana uu haga mooyaane. haddii unuga ugu yari uu haga u baahan yahay, unugta weyne bulshana waxaa macruufa inay hagis u baahan tahay. haddaba su-aal baa taalla ay aqoon-yahanadu isweydiiyaan wakhtigan dambana. leadershipku ama hoggaamintu waa takhasus cilmiya oo in badan la dhigo, waa takhasus nadariyaad badan leh. su-aalaha koowaad ee ugu muhiimsan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah, hoggaamintu ma wax loo dhashaaba, ma fitriba, mise waa muktasab, waa wax la barto? ma xirfad loo tababartaba, mise waa abuur loo dhasho? markaynu su-aashaa isweydiinayna waxa weeyaan, hoggaamiyuhu ma qof intaynu tababarro aynu soo saarayno innagaa hoggaamiye ka dhigayna, mise abuuro ahaan ayuu u dhashay oo abuurkiisa ilaahay subxaana wa tacaala siduu u abuuray ayaa ah sifo leh dhaqan hoggaaminimo. weliba si kale haddaan usii tilmaamo, bini aadamka waxaa la yaqaanaa dhaqamadiisa dhammaantood wax badan oo ka mid a akhlaaqiyaadkiisa iyo sifaadka bini aadamka wax badan oo ka midi wax loo dhasho weeyaan. wax badan oo ka midina waa wax la barto, waa wax qofka lagu train gareeyo. maalan dulqaadku waa loo dhashaa, dadku wuu kala dulqaad badan yahay. laakiin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inama alxilmu bitaxallum, waa wax la ysbari karo. wainama asabru bitasabur. in qofka bini aadamkii intuu mumaaraseeyo isku dayo inuu baran kara buu tilmaamaya. walidalik baa qolada psychologyga waxay tilmaamaan, ama qolyahan leadershipka ka waramo oo dhami waxay sheegaan, waxay yidhaahdaan the bell distribution. markay human behavior iyo dhaqamada qofka bini aadamka ka warramayaan, waxay yidhaahdaan waxaa jira waxa la yidhaahdo bell distribution. belku waa sidan uu samaysan yahay jarasku, dawankan yare la garaaca siduu u samaysan yahay. oo waa maxay? waxay leeyihiin aadamaha sifaadka uu dhaqan ahaan u leeyahay waxay doontaba ha noqotee 1 to 2%
hal ilaa laba waa wax loo dhasho. inta soo hadhay 96 ilaa 98 waa wax la baran karo. hal ilaa laba way adagtay in la bara bay leeyahay, ama suurtagalka maaha. misaal ahaan qadiyadan aynu soconno waxay leeyihin dadka abuur ahaan ayaa boqolkiiba hal ilaa laba ay u dhasheen inay qaado noqdaan. sifaadka qiyaadadu waa abuur ka mid ah oo rabbi uu ku abuuray. hal ilaa labana bay leeyihin wax kasta haddaynu ku akhrino qaado kama dhigi karno. iyagana baabkaasi waa ka madow yahay. 96 ilaa 98 laga gaadhaya inta u dhaxaysaana waxay leeyihiin waa dad la tababari karo, qofba intay doonta ha u joogtee waa la tababari karaa ilaa iyo in laga dhigo qof qaa'ida inuu noqdo. xataa haddaynu taariikhdii islaamiga ka dib u milicsano, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada badh buu ku yidhi weligiin waxa maamulina. qaarna markay soo islaameen maalmo kadibba maamul baa loo dhiibay. qaarka la yidhi weligiin waxa maamulina waa rag ka mida raggii ugu horreeyey islaama. maalan abi dar oo kale waa saxaabada waaweyn ka mid ah. nebi moxamed uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam asdaqu lahja inuu yahay. haddana waxaa lagu yidhi laa ta'muranna cala 2 laba weligaa madaxa u noqon buu nebigu ku yidhi. laba qof madaxa u noqonin, cidna ha liidh garaynin. cagsigeeda rag baa markay soo islaameen ban yaray joogeen baa loo dhiibay maamul oo saxaabo dhan dagaal geliyey. camar binu caas iyo khaalid ibnu waliid iyo rag ka mid ah. macnaheedu maaha khaalid iyo camar inay ka alla ka cabsi badnaayeen ama ka cilmi badnaayeen abidar. waxaa la filayaa intaba inuu abidar kana cilmi badnaa markay cilmi noqoto. dadka lagu tirinaya inuu saxaabadii saabiqiintae hore u islaamayna uu ahaa. haddana nebigu wuxuu tilmaamay inaanu qaa'id noqonin, inaanu cid maamulin. taa macnaheedu waxa weeyaan wadaad baanahay oo cilmi sharciyaan leeyahay kuma dhaxal siinaysa inaad qaa'id noqoto. wadaad baanahay oo cilmi sharciyaan leeyahay oo sifaadkii qiyaadadana waan leeyahay ma kaa reebaysa inaad madax noqoto. innaga laba daraf oo kale fog bay dadku inta badan taagan yihin. kooxda mala wadaadada ay wuxun bay rajaynayaan inay iyagu ka mudan yihiin qolada tan aan weysadoodu badnayn. cagsigana qolyahan kale maamulada iyo waxaan soo waday waxay u haystaan wadaadku inaanu xaqba ulahayn inu wax maamulo. bal wadaadka siyaasadda doonaya ayaa laga bilaabaya kaanama aanu qiyaadada isagu xaq u lahayn. idan waxaynu leenahay sifaadka qiyaadadu haddii lagaa helo ama wadaada haw ama ha ahaanine waxaa suurtagala inaad qaa'id noqon karto. inaad u dhalatay baa suurtagala sifaadka qiyaadada. waxaa kaloo suurtagala inaad ka mid tahay bulsho weynta tababarka u baahan ee haddii la tababaro qaa'idka noqon karta ama hormoodka noqon karta. 96-98% ka kale inaad ku jirto. haddaba waxay yidhaahdaan qaa'idku maalan john maxwell waa wadaad kristan ah, waa minister kiniisadeed, yani waa sheekh kaniisad hogaamiya masiixiya. ilaa PhD-giisa masiixinimadaas iyo wixii la halmaala theologigeedu ku qaatay. laakiin markii dambe leadershipkan iyo waxaan ragga wax ku qoro weeyaan oo bugaagtiisa qaarkood waxay dhahdaan 1 milyan oo copy baa la iibsaday. ayaa wuxuu leeyahy weedhuu leeyahy leaderku is one who knows the way, goes the way and shows the way. hogaamiyuhu waa qofka garanaya buu yihi waddada hogaaminta qof garanaya kuna dhaqmaya. dadka badh baa jira
intelligent ah, caqli badan, wax badan garanaya, laakiin lazy ah, aan irbad dhuub gelin karin. walidalik ardada jaamacaadka masalan markaynu soo qabanno inaad higher degree ama percent sare ku baxdo 90 above cream student inaad tahay ee balas inaad tahay macnaheedu maaha inaad hogaamiye noqonayso. macnaheedu waxa weeyaan inaad wax badan fahmayso. walidalik baa waxay yidhaahdaan CEO-yada dunida marka la eego in badan oo ka midi waa ardadii C ku baxday iyo D iyo meelaha C iyo D soo meel dambe maaha, laakiin waxay yidhahdaan waa rag hardware karis ah, waa dad shaqo, waa managers ma aha leaders. in badan oo ka midi managerka iyo leadernimaduna waa kala laba, maamule iyo hogaamiye waa kala laba. waxay leeyihin hogaamiye waa nin wadada garanaya, jidka uu socdo waa nin garanaya. waa mar labaad ee waa nin kartida ah leh inuu jidka maro, waan lazy ahayn. waa mar saddexaade waa nin dadka tusi kara. dadka badh baa jira sifaadkii aqoomeed leh, jidku uu u cad yahay, kartida loo waddada mari kara, laakiin mudhmudhlo aan laba qof kaxayn karin. yacni inaad naabiq tahay oo caqli badan tahay oo karti badan tahay kama laasimto inaad hogaamiye noqon karaysid. tusaale yacni koox gaagaaban haddaad adigoo dheer la socoto waxaa laga yaabaa meeshay wax ka arkayaan meel ka fog asabsha kaa qaado inaynu ka arki karo ninka dheeri. kuwan maxaad ku odhanaysaa kula arki kari waayey, iyagu ma arkaan waxaan aad arkayso. inaad qanciso oo dee kaxayso iyo inaad tidhaahdo war kuwani qaar wax garanay maaha adigu mudhmudhlayso, labada midun bay noqonaysaa soo maaha. haddaad kuwan qancin karto qaadi kartid oo kaxayn kartid hogaamiyaad tahay. haddaad se dadkaaga qancin kari weydo walow aad aqoontii iyo kartidii leedahay hogaamiye noqon kari maysid buu ku tilmaamaya. si kale haddaynu u tilmaamno marka waxay yidhaahdaan alskandar bay ka sheegaan, alskandar the greatkii hore bay waxay yidhahdeen wuxuu yidhi waxaan ka cabsi qabaa kama cabsooda buu yidhi ciidan libaaxiya oo laxi hor socoto, laakiin waxay cabsi geliya buu yidhi ciidan laxa ah oo libaax hor socdo. yani wuxuu tilmaamayaa leadershipku muhiimadda uu leeyahy. nabaliyunna erey kaa ku dhadhow bay ka sheegaan oo ah koox libaaxiya ah oo bakayle hogaaminaya naf ma laha buu leeyahy, waxaa naf leh koox bakaylayaal oo libaax hogaaminayo. yacni labada ninba waxa ay emphasize-ka saarayaan, waxay qiimo weyn siinayaan liaderku bulshada halka uu ugu jiro, oo haddii liader fiican uu bulshada helo inuu hogaamin karo. haddaba ma jiraa qeyb muktasaba, qeyb la barto? haddaynu idhi waa jiri kartaa, ma jiri kartaa cagsigeena qeyb fitriyo qofku uu ku dhasho? ha nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ashaji cabdilqays qabiilkaa nin ka tirsanaa ayaa uu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad leedahay laba khaslo ama laba sifo oo ilaahay jecel yahay. waxa weeyaan buu nebigu ku yidhi alxilmu walanaa. waxaad tahay nin dulqaad badan oo kaadsiiye badan oo hubiya. waa laba sifo oo ammaana, qofku inuu dulqaadna yeesho, qof xubsanaya oo kaadsiiyelena uu ahaado. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma laba sifood oo ilaahay ugu abuurayba, ma waxaan dhalasho kula helayba, mise waa waxaan iktisaabay, waa waxaan kasbaday oo xoogsaday? wuxuu nebigu yidhi maya, waa laba lagugu abuuray. ilaahay baan mahadinaya buu yidhi wuxuu jecel yahay waa abuuray. laakiin tajribadu iyo waayo aragnimadu way sii soofeeyaan wixii loo dhashay, oo sifaad kartiyo aada u dhalatay hadday tajribana gasho way sii qurux badnaataa. haddaba leadershipku siyaabo badan bay u eegaan. nadariyaad badan oo qoladan dambe ee cilmi baadhistooda nadariyaad kala gedisan bay leeyihin. qaar le duruuftaa abuura,
qaar le bii'ada korisa, qaar le waa mawaaqif la qaato, qaar le waa wax loo dhasho, qaar le waa sifaat qof kastoo laga hela uu liader noqon karo, qaar ilaa 8-9 nadariyadood oo kale nooca theory kala jaada baa jira. maalan nimanka aadka uga warrama waxaa ka mid ah John Adair nin la yidhaahdo. John Adair waa nin ingiriis ah oo qoray book la yidhahdo Leadership of Muhammad. kontineeye book waa leeyay, waa professor macruuf ku ah leadershipka, waa nin mudarrib ah. yani leadershipku maanta waxay ka dhigeen 2 qaybood. qaybi waa waxaan jaamacaadka lagu barto, qaybna waxay dhahdaan waa tadriib, waa tababar, waa training. coachaj baa jira markaa dadka train gareeya oo maamulanimada u train gareeya. shirkaadka waaweyn, wasaaradaha, dowladaha, waxaasoo dhammi waxay qaataan tababar ah leadership. ninkani wuxuu ka mid yahay tababarayaasha dunida ugu waaweyn, ilaa 1 milyan oo qof baa tababarkiisa ka baxay. dad iyaga gaarka u tababaro waxaa ka mid ah United Nationka maamulkooda oo dhan. jaamacaddoodan Torino ku taalla waa professorka maamulka iyo leadershipka u qaabilsan. book buu qoray uu kaga warramayo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam iyo liidernimadiisii, qiyaadadiisii. 2 wax baa kale jira inaynu nebi moxamed rasuulnimadiisa ka warranno, rasuul ilaahay soo diray inuu yahay, iyo inaynu ka warranno cabqarinimadii uu dhashay ee sheegaysa sifaadka qiyaadiga ee uu leeyahay. ninka kane wuxuu tilmaamaya sifaadka uu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysa inuu hogaamiyey. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka hogaamiyaashii soo maray waa hogaamiye ugu weyn baynu odhan karnaa inta taariikhda qoran aynu hayno. waayo onefield hal takhasus hogaamiye kuma ahayn. wuxuu ahaa hogaamiye siyaasadeed, wuxuu ahaa hogaamiye dhaqaaleed, waxaa hogaamiye ummad amaamuday sameeyey ummadda gebigeedba, wuxuu ahaa hogaamiyeyaal soo saaray. yacni jaanib kastoo noloshiisa laga eego hormuud buu ahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam. wuxuu leeyahay marku uu tilmaamayo qiyaadadii nebiga waxa uu ku tilmaamayaa أول صفات وشجع وحكم دبولي صفة الراعي صفة حول الشرنمولة هابولي حول الشركة أيام حاس كجحدا وحورنا إياه أقول شبه guides his sheep نينكا حول دقاها قوسار كاهي حولها والراعه وإلالياه وأرورياه walfairkood iyo wanaagoodu ka fakara waxa iyaga dani ugu jirto yeela. yani ninka maalan ari raacaya waa u sahamiya, meel doog lu geeya, waa ururiya, bahalku ka celiya, midhmidh buu kala yaqaana, teeda liidatu iyo teeda qodaxdu muddo iyo tu kastuu garanaya, mid waliba waxay u baahantahay buu garanaya. waa qof danta xoolahaasi ay leeyihiin si fiican u ilaalinaya. wuxuu leeyahay qaa'idka dhabta ahi ama horseedaha dhabka ama haliyeyga dhabka ama hogaamiyaha dhabka ahi waa ninka sida xoolaha loo raaco bulshadiisa u raaca buu leeyahy. nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wassalaam xadiidkaynu wada naqaan buu yidhi alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati. mid kastoo idinka midi waa xoolo jire, waa raac, waa qof wax la raaciyey. qof walibana wuxuu mas-uul ka yahay ciddii la raaciyey. imaamku buu leeyahy wuxuu mas-uul ka yahay ummadda la raaciyey. ilaahay uu soo gaadhsiiyey nebigu guriga odaygaa mas-uul ka ah, odayga gadaashi qofka dumaraa mas-uul ka ah, carruurta iyo inta soo hadhay. qof walbana aakhire waxa la raaciyey waa la weydiinayaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid kale ku tilmaamaya maa min nabiyin ilaa waqad raaca alghanam. ambiyada isagoo ilaahay hormoodnimada u tababaraya bini aadamka ayuu nebigu wuxuu leeyahy nebi ma jiro ilaa iyo xooluu soo raacay. ari baa la raaciyay ambiyadoo dhan buu nebigu ku tilmaamaya. xataa adiguna ma raacday bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow. xataa aniguna waan raacay buu nebigu sheegaya. waa qof buu leeyahay dadkiisa wax la qaybsada. dabeetana wuxuu tusaale u soo qaadanayaa qiso Suwaad ibnu
ghaziya. aswad ibnu ghaziya waxaa la tilmaamaa dagaalkii beder markii uu nebigu dadka safayey buu ninku yidhi soo baxsan safka si fiican u gal. dabeetana ushuu ku muday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxbaad yeeshay, marka waxaan rabaa inaan kaa goosto. nebigu calayh isalaatu wasalaam intuu marada calooshka qaaduu yidhi gooso. dabeetana nebiguu dhunkaday waxba kamuu goosanine. marka ninkan gaaleed waxa uu qadiyadan u daliishanayaa sida uu ula dhaqmo qaa'idku bulshadiisa. axaadiisu albani ku tilmaamaya inuu xasan yahay. idan qaa'idka namuudajigii buu leeyahy qaa'idka tusaale ahi waa qaa'id waa nin tawaaduc badan ama isdhuldhig badan aan isweynin iyo iskibrini ku jirin, isla markaana ummaddiisu ay ixtiraam u hayso. waa qof aragti leh oo aragtidana dadka ka dhaadhicin kara, u taagan dadka uu hogaaminayo khidmadooda iyo waxtarkooda. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebiy llaahi moxamed laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. ku dayasho fiican baa idinku sugan ilaahay rasuulkiisa, qaa'id buu idin yihi. aayaddani waxay soo degtay ghaswat اlaxzaab. ghaswat اlaxzaab waa critical problem muslimiinta qabsaday. dunidoo dhan baa isugu tagtay wixii agagaarkooda deganaa ee quraysh lahaa, ee carabtii kale reer baadiyaa lahayd, qabaa'il waaweyn oo kale khatafaan iyo kuwaasi leh, yahuud 3 qabiiloo ka tirsan leh. dad badan baa isu tegey muslimka oo dhowr kun oo qof ah, waxaan 3 kunba ka badnayn oo madiino degan, in mar dabka la saaro. mushkiladdaa iyo nebigu siduu u xallilay waynu taarikhda in badan wada maqalnay. saxaabada la tashaday, go-aan ay qaateen markii dambe inay god magaaladaba kusoo wareejiyaan qeybta bannaan. dagaalkaas waa dhirindhiriyey nebigu calayh salaatu wasalaam, saxaabada kala qayb galay, godka la qoday, ciidda la guray, wax walba la qabtay. markii dambe political ay isku dayeen kooxahan ka soo horjeeda inay kala jebiyey. dagaalkaas sidii uu maamulay baa ilaahay wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan ku dayasho fiican baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. haddaba john adir isagu wuxuu ku tilmaamayaa sifadaasi raaciga ama xoolo jirnimada iyo sifadaa inuu yahay tusaale lagu dayan karo. oo isagu wuxuu odhanaya diiwaaniyadiisii meeshii goobtiisa xafiiseed albaabadu way u firaayeen buu leeyaho dadkao dhami way soo gelayeen, oo cid nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadka ka celiso ka teeday iyo askariya waxba toona muu wadanin. wuxuu kaloo lahaa buu leeyahay ru'ya, fishan iyo tawjiih, hanuuninuu dadka hanuunin karayo. dib baan wax ka tilmaami doonaa. aan se soo qaato 2 professor ama 2 aqoon-yahan oo maraykan ah. ninkan hore ingiriis buu ahaa. mid Posner baa la yidhaahdaa, midna Cousins baa la yidhaahdaa. Jim Cousins iyo Barry Posner waa 2 nin oo takhasuskan leadershipkaa leh. waa 2 nin oo ka mida dadka wax tababara. waa 2 nin oo jariidadan maalan Human Resource magazine-ku Barry Posner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay 20 nin uu ka mid yahay dunida human resource thinkerska ugu influential ama ugu saamaynta badan inuu ka mid yahay. waa 2 nin oo lagu tilmaamo coachingkoodu 50 nin ee ugu coachnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadershipka la tababaro inay ka mid yihiin. waxay qoreen book la yidhaahdo The Leadership Challenge. waa book award winning ah, jaa-isaad ay ku qaateen, abaalmarin ay ku heleen. waa book ka mid ah best selling leadership bookska, waagta ugu fiicane la iibsaday. waayo waxay yidhaahdaan over 2 million copies baa laga daabacay mase la iibsaday. book takhasus ah, inta badan bugaagta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshadoo dhamme bugaagta ay akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa. laakiin bugaagta takhasusaadka ku saabsan, takhasusku doona ha noqdo, bugaagta takhasusaadka ku saabsani dad go-an baa barta. inta badan waxaa daneeya dadka shaqadaa haya ama fieldkaas arday u ah. laakiin buug noocaas oo kale inuu over 2 million copies la daabaca waxay tilmaamaysaa
qiimaynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba 100ka buuga business ku saabsan mid ka mid ah 10ka buuga ugu sarreeya ku saabsan bay yidhaaheen leadership buu ka mid yahay. buuga kani waa research, waa field research, baaritaan soddomeeyo sano socday oo ay samaynayeen labadan professor oo ay aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxweynayaasha iyo dadka wax hoggaamiyey ay baadhayeen. waxay ku tilmaamayaan waxay bilaabeen baadhistooda tan 1982 editionkii koowaadna waxay daabaceen 1987 editionkiisii shanaad 25 years later bay daabaceen 2007 2002 alif baa haddana la daabacay. soo duuduub buugga kani wuxuu ka mid yahay bugaagta aadka loo ictimaado, isla markaana waa labada nine leh LBI-ga lagu qiyaasaba leadership-ka. LBI-gu waa waxaan ay ku tilmaamaan leadership practices inventory, waa tool 360 assessment ama questionnaire ka samaysan oo ka mida tuulasha ugu fiican ee loo adeegsado baaritaanka liiderrada markay baadi doonayaan. tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mida bay leeyihiin. baaritaankan markay wadeen ilaa 3 milyan oo qof bay interview ka qaadeen. qiyaas 3 milyan oo qof. waxay dhahaan 75,000 oo qoraal baa soo gaadhay kuway waraysiga ka qaadeen oo qura maahee qoraallada tuulashoodii loo buuxiyey waxa soo gaadhay 75,000 oo qoraal. nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hoggaamiyeedku. iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la bartay inuu yahay. waxay ka warramayaan dhaqanka hoggaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaadhsiin kara. dadyowgii tirada badnaa ay waraysanayeen waraysiyadoodii waxa uga soo baxay dadka waxaa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hoggaamiyahaaga noqdo, hoggaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaa baad jeclaan lahayd. bulshada dunida ku nool xataa ilaa 1,500 oo mudiir CEO dad maamulayaal sharakaadka waaweyn iyo waxaa hoggaamiye ah ayaa ka mida dadka ay questionnaire-ka weydiinayeen. idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshay inuu hoggaamiyahaagu noqdo, inuu sifaadkee yeesho. qofka maxay ah ayaad ku qanacsantahay inuu hoggaamiyahaaga yahay. waxaa jira markaa wax ka mid ah traits sifaadka bini aadamku uu leeyahay iyo wax ka mid ah practices mumaarasaadka la baran karo oo labadaba ay dadku tilmaameen. sifaadka ay dadku tilmaameen ee ugu horeeya waxaa ka mid ah honesty. sifada ugu badan ee la tilmaamay waa al-ammaana, daacadnimo. waxaanu jecel lahay liidarka yagu ama hoggaamiyaha yagu inuu daacad noqdo, inuu honest noqdo, inuu aamin noqdo. sifada labaad ay tilmaameen ee ugu badani waa competence, kifaa'a, hawkarnimo, aqoon shaqeed inuu leeyahay. sifada saddexaad ay tilmaameen waa forward looking or forward thinking. qof mustaqbalka ka arki kara, qof aan gomadiisa iyo intan ku xeeran un la caqli ahayn. qof sahamin kara mustaqbalka ummadda iyo meeshay u socota arki kara. dadka badh baan aragtidoodu dhaafin. dee innaga marka la joogo waa reeraha iyo intan ku wareegsanaya inaanun meel durugsan aan wax ka arki karin. nimankii 3 milyan ee qof ay ka qaadayeen questionnaire-kaasi u dhiibayeen LBI-gooda ay wax ku weydiinayeen natiijadii u soo baxday waxaa ka mid ah cidda dadku ay rabaan inuu qaa'id noqdo sifaadka ay ka rabaan waxay ugu horraysiinayaan inuu yahay honesty, daacad, qof aamina, qof mukhlisa.
qur-aankana in badan baa ku aragteen masaladaasoo laga warramayo. questionnaire-kii markaa 5 qodob baa ka soo baxay. oo koowaad waa from 1987 to 2012 waxay ururinayeen. statisticskaas buuggooda 3 goor bay jadwal ku qoran. buuggu waa ilaa 350 page. 3 jadwal oo kala nooca baa ku qoran. mid ay 1987 markii koowaad ay edishakii koowaad ay buugga soo saareen ka mid ah, mid ay 2007 soo saareen, iyo mid ay 2012 soo saareen. intaaba waa questionnaire-kii ay dadka la daba socdeen. waxa uga soo baxay sifada koowaad ee ay dadku ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeeshaa waxa weeyaan inuu honest yahay, qof daacada inuu yahay, qof aamina inuu yahay. sifada labaad ay ka rabaan waa vision, qof aragti leh inuu yahay. ru'ya, meesha loo socdo waa gadhwadeene xaggu dadka ku wado, qof ay u muuqato inuu yahay. sifada saddexaad ay tilmaameen waa inspiring, qof dadka u waxyoon kara ama ilhaamin kara ama guubaabin kara, dadka waxa uu la rabo gaadhsiin kara. sifada afraad ay tilmaamaya waa competence, kafaa'a, howlkarnimo qof leh inuu yahay, shaqada qof gudan kara inuu yahay. sifada shanaad ay tilmaameen dadku ee ugu badani waa addakaa wanubuuq, intelligence, inuu intelligent yahay, qof caqli badan inuu yahay. 5taas sifo waxa ay leeyihiin dadkii babliga ahaa ee 3 milyan ee qof waxa u batay sifaadka ugu badanee ay ka rabaan qaa'idkooda inuu yeeshaa waa kaa. ama ha noqdo wax uu u dhashay ama wax loo train garay ha noqdo, laakiin akhiiran waa inay noqotaa sifa nafsiya, khuluq, akhlaaq, dhaqana uu leeyahay waa inay noqotaa. inuu qof aaminayay, qof aragti leh inuu yahay, qof karti leh inuu yahay, qof intelligenta inuu yahay, qof inspiration samayn kara, dadka kicin kara ama howlgelin kara ama ra'yigiisa qancin kara o gudbin kara inuu yahay. su-aalaha waxay kaloo weydiiyeen 1500 oo mudiir, leaderskii ama managerskii dunida hogaaminaya 1500 ka mid ah ayay su-aalahan weydiinayeen. waxay weydiinayaan markaa su-aalo ku saabsiisan hogaamiyahaad rabi lahaydeen muxuu yahay. waxyaabo badan oo kala gedisan bay sheegeen markaa. dabeete markii dambe iyagaa waxay u qoreen sifaat. waxay dhaheen kuwiina ka kaalaya, liiskaa akhriya, nin walba maxaad u horaysiin lahayd. sifada koowaad aad ka rabta hogaamiyahaagu muxuu yahay. sifada ugu sarraysa ee dhammaantood ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihin waa credibility, waa mistaaqiya, kalsooni in qofka lagu qabi karo, qofka in kalsooni lagu qabi karo. iyaga laftooda waxay qoreen bug la yidhaahdo credibility, how leaders gain and lose it. bug ay u bixiyeen bay qoreen. qofku in lagu kalsoonaada, qaa'id aanad ku kalsoonayne hadduu ku hogaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maayaan, xaggu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid, haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid. inagu waxa ugu badan haddii dadka lasii dacaayadeeyo oo lasii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysaa. hadday kalsoonidu dhulka gasho minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso. inta ugu yare taxillatulqasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dowladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan. idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni, waa credibility, waa mistaaqiya. mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy, qof aamina. nabiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanay?
الصادق الأمين. that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa, mistaaqiyadii buu lahaa. labadan nin baxdigay 1500 ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan qofka haddii la rabo inuu leader noqdo shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyihin waa credibility, waa mistaaqiya. mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheega yahay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay 3 aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin. 3 ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaama inay 3 guruuboo leh. laa yuzakiihim, ilaahay ma dahiro. walaa yanduru ilayhim, ma eego, il naxariisa kuma eego. cadaab kululna way leeyihin. 3da tani waa maxay? waa 3 waxoo mid walba wixii laga filayey waxaan ahayn lagu hayo. midi wuxuu nebigu yihi waa shaykhun zaan, odayg weynoo zinaysanaya. nin weyne xalaashaa buu taag lahaayo hadduu zinow sii kaco dee waa meel daran. idan sheekhu waa yacni qof sini weyna, qof da-ah oo haddana zinaysanaya waa cebadu. ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa melikun kadaab, boqor ama madax beenaalo ah. trustalinkii baa laga laayay. nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay 3daa qiyaamaha beledu ku dhacaysu ka mid yahay. ka saddexaadna wuxuu nebigu yihi waa caa'ilun mustakbir, wax ma hayste haddana kibray. bini aadamka kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'ahu istaghnaa baa ilahay yidhi. bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro. laakiin midaan waxba haysanay hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha. haddaba qaa'idku si uu noqdo qof lagu dayan karo, qudwa si uu noqdo, waa inuu credibility yeeshaa. credibilityguna wuxuu ku salaysan yahay alsidqu waalaamaana. qof run sheegaya oo amiin ah waa inuu yahay. walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wuxuu shaqo u diray rabbi oo dham inay ammaanadaa lahaayeen. laakiin tuuga weliba dhibta waxay taagantahay meel aan waxba oolin markuu tuug ka noqdo dee markiiba waynu isku dhegaynaa. waxay yidhaahdaan habar norwegia waxay tidhi corruptionku idinkoo qura idinma haysta bay tidhi, yurubba madaxdoodu bay tidhi waa corrupted, waa dad tuugo ah. laakiin waxay tidhi annaga xagga yaga keeggaa weyn oo qofba dhinac buu ka cuna gacmaha layslama soo gaadho. idinkasta bay tidhi keeggaa yaroo markuu midin qaado ka labaad dee derbigu ku dhegaya. marka waa haddii waxa la hayaana yaryiin walow kafaa'aba lahaa waa tuuganimo ku darto dee markaad qaaddo waa bes waa isku marhanaynaa, waxba ka soo hadhi maaya. idan waxaynu leenahay qaa'idka aynu raadinaynaa kow 2dan sifo waa inuu yeeshaa. waa inuu ammaano yeeshaa ilaa xaddin maa. ka labaadna waa inuu kafaa'o yeeshaa, qof mas-uuliyaddan qaadi kara oo wax maamuli kara waa inuu yahay. waa inuu leeyahay baynu leenahay credibility, mistaaqiya inuu leeyahay, kalsooni dadku inay ku qabaan. inay dadku kalsooni ku qabaan waxa abuura baynu leenahay ammaanada iyo truth telling bay leeyihin nimanka kale. inuu aamin yahay iyo inuu saadiqiyo, inuu run sheegayo. haddaba haddii aynu weyno 2%ka ama 1%kii qaa'idka rasmiga ah, xataa kuwa kale waa jafjafi karnaa. haddii laakiin ay noqdaan dad wax baranaya, haddii ay noqdaan maxay dad wax baranaya. walidalik bay nimanka kani ee buuggooda waxay ku soo bandhigayaan 5 qodob waa ay leeyihin waa practices, waa mumaarasaat, waa dhaqamo qofku uu isbari karo. hadduu dhaqankaa la yimaado bay leeyihin leader buu noqon karaa, walow aanad markii hore ka mid ahayn kuwii lagu manaystay u dhashay. aad ka mid tahay 96 up to 98 kii kale aynu sheegaynay. laakiin ogsoonow dee belku jelasku siduu u samaysan yahay. haddii 2% tahay xaggan tahay xaggana 2% tahay waa loo sii kala dhow yahay 2%ka u dhashay
iyo 2% aan u dhalan labada waa loo dhowiyay dayla bahalku waa circle dheer oo sidaa sare u soo samaysanay dad baa jira haddaynu in yar ku kabno markiiba qaada noqon karaya hogaamiyaal fiican noqon karaya laakiin waa inay noqdaan dad training iyo waxbarashada iyo kobcinta u diyaara maxay ku tilmaameen waxay leeyihiin waxay u baahan yahay qof kasta oo cid hogaamiya hadda hogaamintan waxaa ka mid a shirikaadkan dhaqaale kuwa hogaaminaya ha noqdo shirikaadkeena xawaaladaha kuweena kan telecommunicationka kuweena kan tijaarada kuweena kan ilayaba waxay u baahan yihiin leaders inay noqdaan dadka hor socda waxaynu u baahannahay hadday leaders noqdaan dhaqaalaha waddankaa si fiican u kobcaya waxaynu u baahannahay kuweena siyaasiyiinta inay leaders noqdaan ninka sare oo qura maaha waa maca kuwa ka hooseeya wasiirada agaasimayaasha maamulayaasha maareeyayaasha waxaan oo dhan waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay wasaaraddeena waxbarashada macallimiinta principaliska dadkan waxan oo dhan waxaynu u baahannahay nolosha bulshada aynu ku nool nahay oo dhan haddii aynugu yaraadaan maba yaro horta 1% oo boqolkii kunba dee 1,000 oo qaa'idaa ku jira ama 2,000 oo qaa'id oo abuur ahaan u dhashay laakiin hadda dhowr iyo 90 kale laftooda aynu tababari karnaa haddaynu ku talagalno inaynu waxbaranno shantan sifo ay leeyihiin haddii la baro shantan sifo mid waliba laba shay bay commitments bay yidhaahdaan 10 commitments iyo 5 practices bay ku tilmaamaan laba commitment haddaad la timaado halka suluuka loo baahan yahay waad la timi bay leeyihin ka koowaad waxay yidhaahdaan waa model the way bay yidhaahdaan model the way macnaheedu waa maxay waa tusaale noqo haddaad hoggaanmeer u hayso tusaale noqo waxay yidhaahdaan your deeds afcaashaada ayaa ka cod dheer hadalkaaga bay yidhaahdaan dhaqankaaga haddaan maanta o dhan idin khudbadayo idhaahdo ummadda waxeeda waa in aan la cunin ummadda waxeeda waa in la ilaaliyaa dabeetana ay aragtaan anigoo haddana ku xambaaran laba guri iyo waxoogaa kale dee waxba dhegaysan maysaan soocankaa maaha waxay yidhahdaan ficilkaagaa ka cod dheer maxay odhaahdaada haddaad rabto markaa bay leeyihiin in lagu aqbalo aada leader noqoto sifada koowaad aanu kaa rabna waxa weeyaan ama mumaarasada koowaad aanu kaa rabna waa model the way bay leeyihin inaad namuudaj noqoto tusaale inaad noqoto tusaale inaad noqoto macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin in ficiladaadu ay ka cod dheer yihiin maxay warkaaga tacbiir ka qoto dheer kaas bay leeyihin waxay yidhaahdaan if you don't believe in the messenger you don't believe the message bay yidhahdaan if you don't believe in the messenger rasuulka haddaanad rumaysnayn warkuu sida miyaad rumaynaysaa haddaad tidhaahdo rasuul maaha qofkaasi ama mid laguu soo dira haddaad cidi kuma soo dirin mar rumaysid in laguu soo dirayba mar haddaanad rumaysnayn in kii la soo diray uu yahay miyaad ka dhegaysanaysaa markaa warku sido idan waxay leeyihiin qofka inaad rumaysaabaa waxay ka horaysaa inaad rumayso maxay ballanqaadyadiisa iyo dee hadalkiisa iyo khudbadihiisa inaad rumayso kaasaa ka horeeya haddii bay leeyihiin uu qofku namuudaj noqdo tusaale hadduu u noqdo bulshaduu hogaaminayo maxaa soo baxaya respect and credibility buu helayaa bay leeyihin isaguna bulshadu way ixtiraamaysaa waanay kalsoonidoodana way siinayaan hadduu isagu sifadaa yeesho bay leeyihin bulshadu they respect him way ixtiraamayaan credibilityna misdaaqiyana way siinayaan kalsoonidoodana way siinayaan haddaba sidaad namuudaj u noqon kartaa saa tusaale u noqon kartaa laba commitment ha lagaa helo bay idhaahdeen kow commitka koowaad waa inaad value leedahay qiyam akhlaaqiyaad iyo dhaqan waa inaad leedahay oo bulshada aad u sheegaysaa values inaad waddo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam muxuu lahaa inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq dhaqan fiicnida inaan dhammaystiraa la soo diray qiyamka iyo valuega daacadnimo leh kalsooni leh runsheeg leh ammaano leh qiyamkaa waa inaad borobogeyd garaynaysaa waa inaad faafinaysaa
ka labaadna waxay yidhaahdaan waa sadda example adigu waa inaad tusaalaha noqotaa labadaa commitment haddaad qaadato bay yidhaahdaan waad noqonaysaa maxay model daweygi waad noqonaysaa hogaamiyihii ama tusaalihii waad noqonaysaa waxa ay leeyihiin dee ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa in badan rabu الsamaawaati wاlardi baa wuxuu ina leeyay yaa cibaadii inii qad xaramtu dulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ilaahayna ma odhanoo qura dulmiga ha samaynina si aynu u yeellay inaynan dulmi samayn baa ilaahay wuxuu ina yidhi anigaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo aniga ayaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo haddaba idinku dulmi ha samaynina ayuu rabbi inoo tilmaamaya macnaheedu waxa weeyaan ninka madaxda ah haddaanu isagu noqon ninka wax dulminaya haddaanu noqon ninka wax hadaya haddaanu noqon ninka beenta sheegaya hadduu isagu tusaalaha noqdo dadkuna kalsoonidooday siinayaan waana ixtiraamayaan ilaahay qur-aanka laba goor buu ereyga maqti ah maqtigu waa cadhada adag ku sheegay waa goormiyo goorma yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun wardadow maxaa mu'minow baa ilaahay yidhi maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynaynin been ha sheegina baa layna leeyahy waxa aad sheegaysaa ha noqdo waxaad adigu samaysay baa ilaahay leeyahy waxa aad sheegaysaa ha noqdo maxay waxaad adigu samaysay si awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu lahaa inan nebi maxamed hadday wax hadda buu nebigu yihi gacantaan jari lahaa yacni gurigaygaan ka bilaabi lahaa faamiligayga ayaan qaanuunka marka hore ku fulin lahaa dadku markaa way aqbalayaan qaanuunku inuu fulo madaxweynuhu hadduu qoyskiisa ku fuliyo qaanuunka inta ka dambaysa ma muran baa ka taagan in lagu fulinayo idan liaderku waa inuu noocaa noqdaa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay xiwaar dhex maray nebiyullaahi ibraahim iyo rabu الsamaawaati wاlard nebi ibraahim baa ilaahay wuxuu yihi waan imtixaamay imtixaan baan geliyey waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahunna baa ilahay yidhi imtixaankii wuu ku guulaystay nebi ibraahim la imtixaamay markuu nebi ibraahim imtixaankii ka soo baxay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama dadkan madax kaaga dhigaya imaam qof lagu daydo ayaa dadka u noqonaysa nebi ibraahim wuxuu jeclaystay dhashiisa dambena inay sidaasoo kale noqoto qaala wamin duriyatii buu yidhi ilaahow intaan dhalayna ilaahay uu jawaabo waxaa lagu yidhi laa yanaalu cahdi الظaalimiin baa ilaahay ku yidhi walow nebina ha dhale aniga ballankaygu ma gaadho inta dulmiga samaysa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofku hadduu namuudaj tusaale hadduu noqon waayo waa practice la sameeyo bay leeyihin waa tadriib la tababari kara cidda madax noqonaysa oo lagu tababari karo inay dad value le noqdaan examplena inay iyagu valuega ku noqdaan kadib bulshadu ixtiraam iyo kalsooni bay u haynaysaa warkoodana waa la aqbalaya si awgeed baa ilaahay ambiyadii sifaadkaa lahayd ayaa nebi maxamed maxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadih baa ilahay yidhi kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee jidkaa raacay hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi iyagu waxay eray bay soo koobanaa d w s yacni erayada ugu horeeya jumladda tan bay soo qaataan ay yidhaahdaan waa waxaanu rabno do what you say you will do bay yidhaahdaan senteniskaasay intay eraya ugu horeeya intay soo qaadaan ayay cinwaan uga dhigaan meesha tan wixii aad tidhi waan samaynayaa samee bay leeyihin nebiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu dadka la hadlay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma اstaطactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib mar raba buu yidhi waxaan idinka reebay inaan anigu idiin weydaarto yacni anaa ah exambleka iyo modelka anaa idiin ahaanaya buu leeyahy waxaan raadinayaa waa islaax iyo wanaag intaan awoodo waxay yidhaahdaan nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam markuu qaadada soo saarayey waxa uu isticmaalay wax kasta oo ummadda faray intaanay ummaddaba farin isagaa sameeyey
hawl kastoo ay qabanayeenna wuu kala qayb qaatay. hadday dagaal tay wuu la galay intuu koofiyaddiisa qaatay dagaal iyo hubkiisa. hadday god la qodayo tay wuu la qoday khandaqiyo wixii markii la samaynayey. hadday gaajo tay wuu la gaajooday. saxaabigii u yimi isagoo dhagax caloosha ku xidhay nebigu intuu cabarada caloosha ka qaaday ayuu tusiyey isagoo laba dhagax nebi maxamedna xidhan iyo gaajo daraaddeed. ka warran madaxweynahagu hadduu laba dhagax soo xidho maadaan shan xidhanayn markaa dabcan waa tusaalu kuu noqday. gaajadu ku damqi maysa marka. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam model buu u noqday wax kasta oo uu farayey. masaajid baynu dhisanaynaa buu yihi markuu madiine yimi jaajuurkay waxii dhoobada iyo waxay gurayeen buu isna gurayey. waa la gurayey isagoo madaxweynihii ummadda ah iyo rasuulkoodiiba ah. idan haddaad rabto in dadka kaa dambeeya ay ku raacaan oo aada noqoto tusaale fiican, nimankan gaaleed waxay ina leeyihiin bractiska koowaad ee lagaa rabaa waa model dawey bay yidhaahdeen. jidka adigu tusaale u noqo. waxa labaad waxay yidhaahdeen waa inspire a shared vision. dadka wajhada iyo meesha loo socdo wadaaga, aragti midaysan yeesha, ummadda hanuuniyo meeshaad u waddo ha kula fahmaan. meeshaad u waddo ha kula fahmaan. waxay dhahdeen mas'alada tani iyadana commitmentska iyagu qorteen. laba commitment haddaad samayso bay leeyihiin visionka waa yeelanaysaa. waa envisioning the future iyo inaad mustaqbalka arki karto iyo enlisting others kuwa kale inaad liisgaraynayso ay ra'yiga kula wadaagayaan. si kooban haddaynu u tilmaamno waxa weeyaan qof indheergarada noqo. qof indheergarada intellectualkaynu sheegno ama indheergaradku waa maxay? indheer ayuu garanayaa weeyaan. qof in fog arki kara inta caamadoo arkaysa ha arkin, meel durugsan arag. ka labaadna waa maxay? waxa aad arkaysana dadku ha kula wadaagaan. haddaad dadka qancin kari weydo oo aada noqon weydo qof, waxay idhahdaan tuuliska ugu fiican ee uu adeegsado liaderku waxaa ka mida bay idhahdaan alithaaba waltahdiid waliqnaac bay idhahdaan. abaalmarin iyo ciqaabid iyo qancin bay idhaahdaan. dee systems kastoo jira, nidaam kastoo jira saddexdan shay buu adeegsadaa. groupka si fiican u shaqeeya in la abaal mariyo, ama ha la dhinkiyo, ama wax la siiyo, ama ha la dallacsiiyo, ama in la abaal mariyo. cidda si fiican u shaqayn weydana maxay? in iyana ciqaabteeda la siiyo la abaal mariyo. iyo bay yidhaahdaan tuulka saddexaad ee uu adeegsada liaderku waxa weeyaan bay yidhaahdaan waa tuulka ah aliqnaac. inaad dadka qancin kartid. ninkii dheeraa iyo nimankii gaabnaayo wada socday aan sheegayay weeyaane haddaad dee waxaad arkaysa dadka tusi kari weydo you can't lead, markaa ma hogaamin kartid. broseska saddexaad bay yidhaha ama practiceka saddexaad u baahan yahay liaderkaynu ka rabnaa waxa weeyaan challenge the process bay yidhahdaan. challenge the process. qof halkaa uun ku haynaya ha noqonin. mudiiradu ama maamulayaashu barjadka iyo intanunbay iswaafajiyaan, intaasay ku ekaysiyaan oo waa wadaa shaqada. laakiin hogaamiyuhu waa qof la rabo dadka inuu raro. laakiin dadka inaad rartaa mushkilaad tiro badan baa kaa hor imanaya. challenge baad u baahantahy. sidaa awgeed waxay yidhaahdaan broseska inaad challenge garayso ama takhyiir isbeddel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan. kow ka koowaad waa search for opportunities. raadi fursadaha nololeed. ha quusan weliga. hays odhanin there's no way wax la yidhahdaa ma jiro. there is a way. whatsoever bulshada ay ku sugan tahay there is a way. hogaamiyaasha dunida la yaqaana xataa kuwa maadiga ah meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen. waddankan yaree hong kong la yidhahdo waa taqaaneen. dunida dabadeedii ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba. dee dhulna waa 24 kilomitr. maxaad u malaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado? ciidda guryaha lagu dhiso maleesiyuu ka qaadan jiray. aduu qiyaas waddan ciiddana soo dhoofsanaya muxuu haystay? waddankaa ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay waddannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyuu ku jiraa, ugu horumarsan buu ku jiraa.
around 2,000 wax ku dhodhow oo technical schoolisa buu leeyahay bay yidhaahdaan. qiyaas adigu isku waddan yaroo intaa leeg nin qaa'ida 20 sannadood hogaamiyey oo cid walba dhaafay. ra-iisul wasaarihiisu waxaan filayaa 5 madaxweyne ama 5 nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamushu ka mid yihiin. waa waddan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan. waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge, waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya, qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado. taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya. ibxath can ilfuras. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernay diidanayd. 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday. markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay. that chance fursadda qudha uu helay ayuu dowladda islaamku sameeyey. saxaabadiisii hijireeyey, magaaladii u diray, ducaad sii hagaajisa, dowladda dhan ee islaamiga ee dunida gadiday. 1 chance uu helay isagoo 15 chances waayey, furso waayey, hal chance uu helay buu ka faa'iideeyey. idan qaa'idku bay yidhaahdaan kow waa qof search for opportunities bay yidhahdaan, waa qof raadinaya, furaska raadinaya. ka labaadna waxay yidhaahdaan waa experiment and take the risk. ha cabsan ee tijaabi oo riskiska qaado. wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda, yacni dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaadho. xataa shirkaadka dhaqaale, shirkaadka muqaamarada sameeya, muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan. meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku 1 iyo meelahaasi ku warwareega. meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxaan ka dhacan waa riski midhan, laakiin meelahaasi waxaa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% ba inay gaadho profitku. walidaalika waxay dhahaan riskiga iyo profitku way wada socdaan. soomaalidu maxay ku maahmaahdaa barti yaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaan. waa yacni waa niman challenge garaynaynin nolosha. haddaad intaad taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha. cayaaraha ay ku tilmaamaan aan 2 cayaarood idiin sheego. macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi, waxay yidhahdaan guushu waa 2 shay oo la isku daro. waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaha. hadday fursaduhu ku hor yaallin laakiin adigu aanad diyaar ahayn hore u socon maysid. haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid. guushu bay yidhahdaan waa labadaasoo wada kulma. waa inaad fursaddiina aad la kulantay, adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro galaya oo ka faa'iideynaya inaad tahay bay yidhaahdaan. waxay yidhaahdaan waa fursa iyo muqaamara. muqaamaradu jarska xornimo maaha taan sheegaynaa. yacni ninka jaska cayaara muxuu sameeyaa? soo jaska ma taqaaniin? shatranjka cayaartan la yidhaahdo. jasku waa in go-an buu qof waliba marka hore deginshiiyuhu lama degee sida shaxdeenna oo kale. shaxdeenna way ka horeysaa jaskoo dee iyadana waa godkana waa la degaa. laakiin kan marka hore degin tuurku wuu qoran yahay. in go-an baa askartaadiya waxaa ku yaallay. guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fekeraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqonaysa, maxaa soo baxaya? markaasaa waxaa kuu soo baxaya intaas oo probability, ixtimaalaad tiro badan. askariga haddaad guurto kaasuu guuri karaa, kaasuu guuri karaa, kaasuu guuri karaa, kaasuu guuri karaa, alternatives tiro badan, ixtimaalaad. markaasaa waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan? jawaabtaasaad bixin. kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan? jawaabtaasaad bixin. kan hadduu guuro maxaa ka dhalan? idan waxa jaanis jiroo dhan baad xisaabinaysaa. marka aad xisaabiso ayaad dhiiranaysaa inaad guurto, laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto. socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal. idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay? jas cayaaraya. laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuu. laadhuuda maxaa la sameeyaa? dee waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo boodaa. hadday 6 kuu soo baxdana 6 unbaad guuri. haddii 2 ka soo baxdana maxay? 2baad guuri. that means maskaxda maad isticmaalin. waa ku dayba, waa muqaamir. marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya, laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin, tijaabinaya.
waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhahdeen enable others to act. dadka kale u ogolow inay iyana shaqada qabtaan, majaalka bannee. madaxda iyo liideriska barh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiryow loo qaado, markaa in cidibo ka ag muuqato ma jecla. good leader maaha kaasi. liiderka dhabtii bay yidhaahdaan waa liiderka dadka soo saara, waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara. john maxwell leveladiisii afartaha markuu tirinayey levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position, waa ninkii un kursiga iska fuulay ee dee dadkuna ku qasbana inuu raaco. levelka labaad waxa uu ku tilmaamaya inuu yahay permission, waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u ogolaadeen. levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production, waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxaya waxaa qabto midhahan lagu daba socdo, dadkana taqdiiri. levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka, doorashada markaa hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay. positioningkana wuu hagaajiyey, qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey, equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihin. wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey, dabeetana wuxuu ogolaaday uu delegate gareeyey shaqadii, wuxuu ogolaaday inuu qofu shaqeeyo. haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso, dabeetana tidhaahdid go ahead soco, waxay leeyihin waa martabada afraad ee qaa'idka. waxay idhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ee ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay, raggu soo saaray helay, waa martabada shanaad. labadan ba isku dar. waxay dhahaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye niman abuu ka wada dhigay qaada. nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo halyeeya wada ah oo dunida dawakiyey, furtay dunidoo dhan. fishankii nebi moxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla, ama bicizi casiisin aw bidulli daliilin bay ku gaadhi doontaa. fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. wuxuu lahaa fishanaa dadkan inuu janno geeyo, adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo. saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen, intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey. yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equibid ka dhigay, majaalkana uu u baneeyey, qaada noqday. marka saxaabo aan taariikhtii hore carbeed lagu aqoon, ribciy ibnu caamir iyo mugiirata ibnu shucbi ayaa yaqaan. waa nimankii rustam ka wareeriyey, dowladdii beershiyey raggii hogaaminayey, raggii ka wareeriyey waa nimankaasi, waa qaada. idan waa level bay yidhaahdaan, levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay. oo waa maxay? enable others to act. ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga, ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid. waxay isagu yidhaahdaa labada commitmane haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster the collaboration iyo strength others buu yidhahdaa. kuwa kale xooji, wax wada qabadkana biiri. waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad shanaad miyaaba tani waa tii nami tacaawuna qawi laakhariin. mumaarasada ugu dambaysa ee shanaad waa encourage the heart bay yidhaahdaan, shajic alqalb aw الtaqdiir. waxa weeyaan dadku markaad equib garaysa ay shaqada qabtaan, ictiraaf wixii ay qabteen, maamuusna wixii ay qabteen ictiraaf, recognize the contribution bay yidhaahdaan, and celebrate the values and victories. dadku markay shaqeeyaan shaqada ay qabtaan, marka hore ictiraaf, you done well de, shaqo fiican baad qabata. marka labaadna celebrate garee, abaalmariyo ammaan oo abaalmarinta sii.
walidalik buu nebigu calayh الsalaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu tilmaamayay qofba wuxuu ku fiican yahay. amiinu ummatii abaa cubaydata bnu اljaraax, arxamu ummatii biummatii abi bakr. wuxuu nebigu sheegayey iyagoo nool sida ay kale yihiin. nimankani buggooda waxay ku gebagabaynayaan, waxay idhaahdaan xanjada isku haysta bay idhaahdeen bulshada iyo hogaamiyuhu waa love bay idhaahdaan, kalgacal, jeclaanshiiyo. practiceska markuu sameeyo bay idhaahdaan traitskaynu soo tilmaamay ama sifaadkaynu soo tilmaamnayna uu yeesho, qaa'idku intaa markuu yeesho dhaqamadaana uu ku dhaqmo, waxa dhasha bay leeyihin kalgacal, shacabki iyo madaxdu ay isjeclaadaan. nabiy llaahi moxamedna calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy alaa أkhbirukum bikhiyaari umaraa'ikum wa shiraarihim. ma idiin sheegaa buu nebigu yihi xulka madaxdiinna, khiyaaru umaraa'ikum, xulka madaxdiinna iyo kuwa u shar badanba ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi. haa baa la yidhi. wuxuu nebigu yidhi xulka madaxdu waxa weeyaan kuwa idina aad jeceshiin iyana idin jecel, idina aad u ducaysaan iyana idin duceeya. ma aha madaxdan ku qasabto dadka wadaadkan khudbadda akhrinaya inuu meesha uga soo duceeyo, allahuma aslix wulaata umuurina halkan ka soo gura. waa wulaata umuur qasab loogu ducaynayo, laakiin waxaa la rabaa inay niyada ka timaado, inuu kasbaday ninkan madaxda in loo duceeyo, inuu kasbaday. ducadu ma xumaa hataa hadduu shar baday inaad tidhahda ilaah wanaaji, ila dadkaa la wanaagsanaanaya hadduu wanaagsanaadee. laakiin asliyan waxau nebigu tilmaamayaa waa qof idina aad jeceshiin isna idin jecel, idina aad u ducaysaan isna idin duceeya. ma idiin sheegaa buu nebigu yihi madaxdiina kuwa ugu sharta badan leh, hogaamiyaasha uga sharta badan leh waa kuwo idina a habaartaan iyana idinsoo habaara. isna xafiiska markuu galo wuxuu leeyahy waa dadkani waa dad baas, ma ummad la wadi karaa baad moodaysaa buu leeyahy, habaar baa ku dhacay. iyana markay xaggan joogaan waxay leeyihin madax baad moodaysaa, waa inkaar qabe, wixii meesha yaallay la teg, waxba kama tegin. idan iyana xantiisa ay habeen iyo maalinba wadaa, isna xantoodu wadaa. waa kuwa u sharta badan buu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam. idan waxaynu isweydiin saashu waxa weeyaan waa kuwa maqaa'idka. waxaynu idhi jawaab waxaa inoogu filan 3 milyan oo bini aadam wixii la weydiiyey la yidhi yaa qaa'ida. qaa'idku waxa weeyaan baynu leenahay waa ku ammaano leh oo kafaa'o leh oo mustaqbalka arki kara oo waxay soo taxeen leh. waxaynu idhi qaa'idku waa qofka sifaadkaana leh, credibility lena leh, kalsooni lagu qabo, kalsoonidana ay abuurto inuu qof run sheega yahay, daacad iyo ammaanana leh oo aan waxaa loo dhiibay cunin. waxaynu idhi waa qof practice sameeya, dhaqan leh, 5 ah, 5taa shay oo ku xidhan 10 commitment. intaasay nimankani inoo soo gudbiyeen. inta ay soo gudbiyeenna cumuuman haddaynu qur-aanka iyo xadiidka ku aragno ka baadhno waa ku arkaynaa. idan waxaynu arkaynaa tajribadii bini aadamku uu sameeyey, baadhitaankuu sameeyey, iyo wixii diintu ina fartay ee mas'aladan ku saabsanayd almost inay isku dhadhow yihiin. waa laga yaabaa inaynu ku kala gedisannahay sidee baa loo samayn karaa daacadnimada tan iyo waxa kale. innaga factorka ugu weyna sameeya waa maxay? waa alle iyo aakhire inu ka cabsado de alimaanu billahi wa bilyowmi alaakhir ayaa factorka ugu weyne waxa kan abuura. si kastaba ha noqotay ayuha alxiba, haddaad tahay nin guri hogaamiya, 4 carruur iyo hooyadood haddaad hoggaanka u hayso, intan baa lagaa rabaa inaad mustaqbalkoodana arkayso, daacadna tahay, shaqadan aad qaban kartid. haddaad shirkad iyo urur hoggaamiso, haddaad iskuul iyo arday hoggaamiso, haddaad hal fasal hoggaamiso, haddaad imaam masaajid iyo inta ku tukato hoggaaminaya tahay, haddaad suldaan iyo caaqil tahay dad hoggaaminaya, haddaad tahay siyaasi ummadeed oo ummad raba inuu hoggaamiyo, sifaadkaa iska baadi doono. haddaad u dhalatayna sii soofayso. dhaqamadaa laga rabo hoggaanku inuu yeeshana yeelo, markaasaad helaysaa dadka kalsoonidooda iyo ducadooda iyo taageeradooda iyo ixtiraamkoodaba markaasaad helaysaa. idina waa inaynu ku talagalnaa haddaynu kuwii rabbi uu ka dhigay baadidoonka ku weyno. ilaan dadka waa la baadi doonaa,
akademiyaad bay dunidu leeyihiin bulsho kasta raabiya dadkooda raadceeya dadkooda ah leadership leh sifaadkaa leh dabeetana way sii tababaraana waxaa loo tababaraa qaadada mustaqbalka inay ama waa inaynu raadinaa ama waa inaynu tababaraa innagu labadiiba intaynu ka gaabinay ayaynu rabnaa inuu samadun ka soo dhaco ilaahay dee haddaynu baryada badina wayna siin karaa laakiin aan ku darra maxay ficilka aan ku darro sala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin جزاك الله خيرا إن يهوى خير